magacaygu waa Bashiir Cabdulqaadir Maxamed waxaa la igu garan og yahay Bashiir Suuley aqoon ahaan waxaan bartay waxbarashada gaar ahaan xisaabtii fiisiska waxaan ahay macallin jaamacadeed iyo dugsi sare waxaan ku sugnahay oo ku noolahay hadda magaalada Galkacyo qoritaanka buugayga aan ugu magac daray ilaa lagu hangoobay oo ka hadlay aafada tahriibka waxa aan bilaabay sanadu markay ahayd 2013 waxaan soo bandhigay sanadkii 2016 qiyaastii waxaan waday muddo ku siman 3 sano iyo bar laga soo bilaabo 2013 ilaa sanadka 2016 dhexe bartankiisii oo soo bandhigay waxaan waday oo gacanta ku hayay muddo 3 sano iyo bar ah waxay u kalifay waxay ahayd baahi taagan oo xilligaas aan arkay oo aan ku arkay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkooda iyo dadkooda waan ficil lahaa inay naftooda ku haligayaan marno aad u khatar badan ujeedada ugu weyn ay u silcaan u rafadaan ay tahay inay Yurub gaaraan waxaan sawirtay ugu horeysay aan daawaday muuqaalo aad u argagax badan oo laga soo sameeyay ama laga soo wax la yiraahdo qaaday dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku silcsan xeebaha Liibiya iyo Saxaraha intaba waxaan is weydiiyay dhalinyarada Soomaaliyeed markii ugu horeysay ay safarkan galayeen ma dareensanayn in tahriibka dhibka inta leeg laga maro inta aan la bagaarin meesha loo socday waxay soo baxday cilmi baaris aan sameeyay oo muddo waday in wax ugu weyn ee dhalinyarada ku khasbaa marka laga yimaado ujeedkooda inay Yurub gaaraan inay tahay war la'aan ama xog la'aan wadada ay marayaan markaas ayaan baaray xog la xiriira arrimahaas balin hore loo sameeyay waxay soo baxday inaysan jirin wax xog oo Soomaali ku qoran inteeda badan arrimaha noocaas laga sameeyay xilligaas waxaan go'aan ku gaaray markaas in aanan arrintaas cidna ku hadlay aan ugu xikaraanka aan ka qabto markaas aan go'aan ku gaaray qalinkan oo qaatay dhiganahan ugu magacday ilaa lagu hangoobay oo qormadiisa aan waday muddo 3 sano iyo bar ah ugu dambeyntiina ilaahay fadligiisa aan soo bandhigay 2016 wixii ugu dhiirigeliyay wuxuu ahaa in uu riixayay qodob ah in aan baahi markaa taagnayd sidii hore uu soo sheegay aan ahay qofka ugu horeeyay dabooli kara waxa ugu weyn aan sameyn jiray waxay ahayd in aan waraysiyo sameeyo waxyaalaha ugu dhiirigeliyay waxa kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibtay oo aan xoog saaray badankooda xogtan aan ka raadinay in badan oo kamid ay soo dhaweeyeen iga mahad celiyeen talooyin aad u tolmoon ay siinayeen garab iyo gaashaan ay ahaayeen sidoo kale dhalinyarada guduhu ay ugu caawinayeen xogaha noocaas markaan raadinayo waxa kale oo ugu dhiirigelinayay oo ay riixayay in aan isku dayay bal inaan sabab u noqon karo dhalinyarada Soomaaliyeed oo hamiga tahriibka ku jiray bal inaan ka joojin karo in badan oo dhalinyarada ay la soo xiriiray buug akhriyeen waxay ii sheegeen in ay markii akhriyeen go'aamo badan oo ay hore u qabeen ay bedeleen wax saameyn aad u ballaaran oo buug ku yeeshay marka ay akhriyeen qisooyin aad u murugo badan oo buugaas ku xusan oo ay weerinayaan dhalinyarada hore u tagtay tahriibtay dalalka Yurubna gaadhay xaruntan la magac baxday Royal Book Cave waxaa la furay koodii bisha labaad sanada 2017 fikradeeda waxaa raynay in dhalinyaro saaxiibanahay oo la yiraahdo Axmed Gaashaan waxyaalaha nagu dhiirigeliyay waxa kamid ahaa inaanu sameeyno wax ka bedelan waxyaalihii hore meelaha kafeteriyooyinka lagu sameyn jiray tusaale ahaan shaahinta loo yimaado in la booqo oo lagu sheekaysto maanta dhan qabyaalad iyo qoran looga sheekeeyo waxaan isku daynay bal inaanu fikirka noocaas ahay 10 qaab togan u bedelno halkii laga booqi jiray qabyaalad laga sheekeyn jiray fadhi ku dir lagu fadhi ku diri jiray siyaasad iyo qiila waqaara inaan u bedeli karno u abuuri karno jawi ka bedelan oo qofku marka uu koob shaah u yeerto halkii uu siyaasad gali lahaa ama uu booqo lahaa uu buug ku akhriyo inta badan anigu horta waxaan ku hamiyaa waxa ugu weyn waxa weeyaan wax baridda inaan soo saaro jiil xambaarsan fikradda togan anigu xambaarsanahay waxaan isku dayaa in aan dhalinyarada intii karaankayga ah oo aan awoodo aanu ilaahu mahal qofna haado oo wax ka bedelo aan saameeyo xooga waxaan aaminsanahay waxa akhrisku inuu yahay meelaha ugu muhiimsan ee dhalinyarada Soomaaliyeed lagu bedeli karo qofka hadduu wax akhriyo waxa la yiraahdaa qofka wax akhriyahay ama qofka waxa qorahay waxay la nool yihiin jiilal badan qofka wax akhriya wuxuu la nool yahay wala 3 jiil jiilkii tagay oo xogtooda akhrisanayo dhintay jiilka hadda nool oo la nool yahay oo say ka mid yahay qoraaguna wuxuu dheeriyay jiilka dambe oo xogtiisa dhaxli doona qof ugu horeeyay ugu dhiirigeliyay qoraalka sababna wuxuu ahaa in almaabteed ma eedanahay oo la yiraahdo Maxamed Nuur Shiro oo qoraa oo Nairobi ku sugan oo qofkii ugu dhiirigeliyay sababna uu ahaa inaan wax qoro inta badan maqaaladiisa ii soo diri jiray marka warshaan u akhriyo ilaa markii ugu dambeysay aan gaaray bal anigu wax isku dayana wax qoro inta buug qorin waxaan qoray qiyaastii 20 maqaal oo asagu inta badan ugu dhiirigelin jiray mar walba inaan maqaalada noocaas oo qoro oo daabaco oo website baraha bulshada iyo website Soomaaliya ku baxaba aan ku daabaco ku qoro
kan jecelahay oo kale waxaa ka mid ah qoraalladooda iyo siday wax u qoraan iyo xogaha baahsan ay soo daayaan Saadiq Eeno oo ah qoraal aan aad u jecelahay qoraalladiisa inkastoo buug tiro badan uu soo qorin haddana qoraallada u baahiyahay ay kumanaan buug la qoray ay ka faa'iido badan yihiin kana saameyn badan yihiin dadka aan ku daydo ayuu asna ka mid yahay marka ugu dambeysay dhalinyarada Soomaaliyeed si gaar ah kuwa reer Puntland si gaar ah kuwa Gaalkacyo waxa aan kula dardaarmayaa in ay horta ay xooga saaraan qof walba ay horta inuu naftiisa soo dhiso naftiisa marka uu dhiso ayuu bulsho u gudbi karaa qof waxyaalaha xooga inuu ku saarana waxaan aaminsanahay inay kow ka tahay horta qofku inuu wax akhriyo aqoontiisana uu kobciyo marka kadib baa la gaarayaa inuu aqoontii uu bartay akhriskii faraha badnaa ee uu ka dhaxlay buugtu akhrinayo inuu bulshada la sii wadaago oo sii gudbiyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ugu baaqayaa si guudba in wax akhriska la badiyo sidoo kale dhalinyaradu ay isku dayaan inay ganacsi abuurtaan aysan shaqaalo oo 24 saac daba ordin buugkeefna mar walba wax u furan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa reer Gaalkacyo kuwa reer Puntland kuwa reer Galmudug cid ka soo timaada way u furan tahay qof baa hebel inuu isku dayo intii buug uu heli karo tabarucaad sameeyo hadduu rabee meesha uu furayo ama haddii hore u jireen xataa inuu keeno oo waxa la yiraahdo dadka uu isku dayo xataa xagga akhriska inuu ka taageeri karo